السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawaneysaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay. Waa habeenimo Khamiis oo Jimco ay soo galayso. Taariikhduna waa 24 Juulaay sanadka 2025. Haddaba qodobada caawa barnaamijkan idinku hayo waxaa ka mid ah iyadoo aan ogeyn in Israa'iil ergadeedii wada hadallada Dooxa ay u yeeratay. haddana waxaa goordhow soo baxay war sheegaya in Mareykanka iyaguna ergadoodii halkaa joogtay ay u yeerteen. ergeyga Mareykanka u qaabilsan wada hadallada Steve Witkoff ayaa hanjabaad dadban u diray Xamaas. haddaba maxay isku afgarteen Mareykanka iyo Israa'iil in la gumaado oo la gaajaysiiyo dadka reer Gaza? xaaladdu sidee tahay? wada hadalladii sidaasay ku burburayaan. haddaba wararkii ugu dambeeyay ee ay warbaahintu ka qortay sheekooyinkan ayaynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinaynaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu hayaa maanta oo Khamiisa sidaa ogeydeen waxaa maxkamad la geynayay haweeney lagu sheegay inay tahay isla markaana ay doonaysay inay disho Netanyahu. haddaba maxaa lagu soo eedeeyay haweeneydii markii maxkamadii la tegay? sidee wax u dhaceen? sheeko qosol leh oo arrinkaa ka soo korortayna waan idiin hayaa. Ingiriiska, Jarmalka iyo Faransiiska oo dhinac ah iyo Iiraan ayaa berito waxay kulan ku qaadanayaan Istanbul. arrinta nuclear-ka Iiraan ayaa laga hadlayaa. sidoo kale wada hadallo ayaa iyaguna ka furmaya Paris, dhex maraya Suuriya, Israa'iil iyo Mareykan. haddaba dhammaan wararkaas oo kuwii ugu dambeeyay soo korray intaynu kala maqnayn barnaamijka ayaynu ku soo qaadanaynaa. inta aanu ku jirno wixii warar soo kordhana waan idila socodsiinayaan. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street